السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد بريدي سلام يا صاحبي. هاد بنو سلام يا إذا هانتي من رب دفاع عالم قد كجوكتان هكذا قد داوان صديق لا سعتاوي يحيى عبدي هذا يوتيوب شانل كوكو عصوبتاي عاتيبا كوكو هورسي ساعدي كوكو هورسي يوتيوب شانل كيغا سو باقتو فضل لايك شير سبسكرايب انت وصار oo aad baan mahadsantahay runtii waxa rabaa inaan ka hadalno waxa jirta arrimaha qaar xaqiiqatan marka aad ka hadlayso dareen kale ku sameynaysa sharmo boy wiil yiraahdo waa fanaan isla marhaantana raaba oo dhanka raabka ma garanaysaa soo qaada muddo yar gudaheedna saameyn ku yeeshay gebi ahaanba geega Soomaalida saameyn weyn ku yeeshay magac weyn ku yeeshay qole waxa jirta leeyahay Astaan TV shalay markii uu soo baxayay uu tagay wuxuu hees idinka aan astaan ugu talagalay idin qaadaya ee waraysta oo gacan qabta nin ragan hay ciilina waxa ku raani anagu qof ma garanaysaa caana mooyaane qof kale anagu ma waraysan hada dunidu bay nooc ay joogto iyo halkii taagantay baa laga sheekeeyay lagu sheegaya shalay ninkii aad yeesay liidisay bayad maanta heestiisii xafladda dhexdeeda aad kaga dhexniyeekiso aad ku jaasto maxaa keenay baylaga muuqaalkan ila soo yareeyay صدرك سامبا taariikhdu wax isqarsan maaha wax qof looga sheekeynayna maaha maanta saga skip baray heerka muxuu soo gaaray shan maba hadaba inaad maanta adigu aad ma garanaysaa heestiisa soo qaato ninkii shirku soo garab qabo inaad maanta heestiisa xafladiina dhexdeeda aad kaga jaastaan nin raga xiniye qabatay oo tabarka koowaad nin raga ay xiniye taawateen sababtoo ay tahay waxaad ka dhigtay qofkan inuu soo waxba tiri kareynin waxa kale oo aad ka dhigtay inuu qofkani waxba qabsan magac yeelo ka leedin maanta saameyn buu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed sababtoo saameynta ugu yeeshay waxa weeyaan heesiisa soo qaado kun kan shiri waa leendana kan waxay kun kan kale waa kam saaran wixii baa qorxay xaga ku qarxeen hadaba TikTok bay ku qarxeen waxa jira inta soo shaqsi oo aashan baa magaciisa baan aqoonin iyo inuu fanaan yahay baan aqoonin oo TikTok markii heestii mar page oo beerugaaba TikTok ka soo magaasa ka soo horbaxday heestiiso challenge lagu sameeyay ay soo wada yaani YouTube ka yimaadaan way soo qaataan hadda iyagii baa soo sameeyay hadda qaar ka soo sameeyay dhama bulshada geeyga Soomaalidu ku fidayba ila maanta heer dad magaasa adigii maanta ad istiraatiijiya ku kala dawadii shida diiday isla maanta ya ku kala xafladada akala qayb galay ku diiday waa sharaf soo hoyatay oo uu soo hoyay shacabka Soomaaliyeed هذا الشيء ممكن إنك هسيرادو شعب الصومالي ما حكوا هاي بوشدة الصومالي كمان دحبحه إن أدبون جعل بوشدة الصومالي كل حجرو إذا كقارب كم ولا كفتن وإذا كقارب كم ولا فان إنه سكفان يوقف سكفة بدي ما هفان كفتنا كماها صوته أي توي أوجي هاي شاي حاجة أوي تاجنه وشاي حاجة تاجنه وحكوا ساعتين شاي حاجة تاجنه داون بانها ما أنت حاجة تاجنه حاجة سرن تاجنه معنا أستاني وحي شيء تقول ليدي يسينيكا يلا قصر مري يا كسر مري وبرشلونة الصومالي الشعب الصومالي إسنا مرهاتنا هسيسة تاجرتي فانكيسة تاجرتي فانكيسة سبورتر مقاصد سبورت كراسي أديك ستان تي في كم أد فيلين حبين كم أصيحان كم أساقين نكاشر موبايل أد ما توريسي جودي دي تي في كويمي أي بروتوري هير كين تالي جاري دونا وليجا كم تفكرين كم حساباتهم كم ترسنين إنه جاري دونا لكن وانا لو همي بولها معناه قف كبير أنا كان هم ليه وقان لي وإسلام مدار يكسني وجاره finally صوت وايتاي قف كان وحى كجارية قف كان مر هدي ومجرد قف إسكسو شيء فانكيس إسكسو شيء ده رأوا إنه هيك سبنا مجرد هرمر بالك جاره ما لعب بالعركة سمعي هدوي هاي of course وقت كسمعي كتاع وهذا هم هيكس وهذا هيكس اللي هو يعني لكن هذا تاي وحصل شعله هنا سمعيه هذا تاي نوع شعله هنا سمعيه فعل كانت كدرينين تعرفوا عليه ولي جوا حاولها كشفتوا من نقصها صوت وايتاي وحن marka leedahay waan sameynaya iyo ficilkii actionkii wada wada socdaan hadda ficilkii actionkii wada socodsiiso oo wixii magaasa wada socdaan waad gaar kartaa horumar walba u baahantay meel walba u baatay inaad hiigsato oo aad gaadhido istaagto wad istaag kartaa iyadoo cid ma ka caawin ninka odaga youtuber soo caawiyay heesa bedel uu sameeyay halkaas uu ka soo galay youtuber ku soo dhex muuqday heesu soo saaray halkaas uu magaasa fankiisi ka soo anba qaaday ilaa hadda de magaasa adiga shir diidiyada heesiisi magaasa aad saa ugu raaclaynayso ku dakeynayso واسكول وسوهيدي ما كان واحد كلها أستان تي في وقضاء أستان تي في حلاي هدا كذب نرجع حين يتعاملنا هدا كذب هدي فنان كريدي ماضو تاني تصالة هيدي هاد وايد نكن 10 بقول دي تصالة حكوا هاتو هدا كذب هدي ما كانت وفنان كريدي ماضو وإسلام رهانتنا فنانة ويدير هذا يقرب قبطة هذا اللي هكجل لنا ولا عنا هكجل لنا صوت وايد هاي سوا حسوس شرم باي شرب حمو هاي ما أنتنا adiga oo baahan inuu ku yimaado xafladda kala qayb galo oo ku diiday in kastoo isaguna balan qaaday oo
shacabka hortooda iyo dadka hortooda ka ballan qaaday astaan t v goob ay leedahay ama meel ay leedahay inuusan magaranaysa cagtiisa soo dhigi doonin, uusan ka qaybgeli doonin showyadeeda, bandhigyadeeda, qurumaheeda, wax walba ay samaysanayso inuusan ka qaybgeli doonin oo aan astaan t v lagu arki doonin inta uu nool yahay. inkastoo isagu ballan qaaday hadda ninkaasi waa saa ku ballan qaaday unbuu ballanta ku qaaday dee xafladii ninka buu soo dhex muuqan dee mana jiro weji aad ku raadsataan inta maanta kula hashaan tiraado nin waan ku baahnay kaan nohays weji aad ku tiraado ma weyna reebano wejigu shalay buu ahaa nin wejigan waa baasabar ba ku leeyahay nooca ninka shalay diidsan ku diisina tv-ga ma garanaysa inaad ku casuunto oo aad wareysi kaga qaadin ninka diidisay bal ka hor hadda maanta asigii ba raadinaysa sidii ku kana alla niyo dunidu qofna waxay sara maraysaa qofna ay hoos ka dhigtaa marka lagu leeyahay tan waa duniya isku aamini waa noocaas oo kale bal ka waran maanta inta farqiga idii kala dhaxay isagii maanta shacabkii iyo bulshadii saa u daba yaacaysa aduu tv baa awal badi tv baa meel baa iska fadhido fanaaniinta wareysin saddex ku ahayd fanaaniinta iyo wargeysyada iyo wareysyada xasad ku noolay ka waran haddii maanta fanaan maanta dhan oo magaaladii iyo bulshadiiba laga taageero haddaan adigiiba kadinki kaaga soo galaynin oo uusan rabinba inuu telefishinkaagii wax wareysiya siiyo bal ka waran waa guuldaro run ahaantii isaga laftirkiisa waxaa leeyahay aniga ma khaldama waa ilaahay subxaanahu watacaala qofka bilaadan kana waa khaldama kule maanta waad sibartay de kulata adaa go-aan leh dad mar dad kasoo dhex muuqan doonta inkastoo go-aanaad gaadhay waa tiri kama soo dhex muuqanayo inta aan noolahay waad go-aankaaga ku adkaysatay qolada astaan t v waxaa leeyahay bal hadda kadib finaanka dambe soo baxaya isla mar ahaantana garab idinkaga baahda idii yimaada idi wareysta oo wareysi iga qaadaan bulshadana weji fiican ha u isticmaala iskaga dhigin dad aad u wanaagsan fanaaniinta yaryara soo kacaya dhimkaasa magaalada ku dhibana wareysiyada ha u diidin inaad ka qaadaan tv-ga magaas inaad ku wareystaan ha u diidin wareysta oo wareysyada ka qaado wareysiyada la yeesha si isla mar ahaantan qofkan uu farxo oo uu farxad u helo adigina magac bay ku wata eeg shar walba shar haddii aad gacan qaban lahayd idig sharaf iyo magac bay idin ahaa lahayd astaan t v baa lagu bartay marwalba alla shama boy shama boy muxuu soo caanbaxay ma kala ilaalo astaan t v baa lagu bartay astaan t v baa soo cansaartay yaa sharaftii helay adiga yaa magacii helay adiga had iyo jeer oo uu magaciisu sii kordho adiguna magacaagaa sii kordhaya had iyo jeer oo uu guul sii gaaro adiguna guusha waad sii gaadhay sababto ay tahay maxaad ka dambeysay horumarkiisaad ka dambeysay hiigsigii himiladoo fanka ka lahaa ayaad qayb markaas gacan in xalli ka qaadatay garab baad ka siisay wada caawisay dan guul walba ama horumar walba oo uu noloshiisa ka gaaro adna qayb baad markaas kala tahay oo sasad ugu laaban tahay waayo mar walba waxaa tahay qof abaal u hayo qof walba fankiisa bartaana astaan t v uu ku bartan baa laleeyahay laakiin dama idaan sameyn laakiin maanta waa nin iskiis kusoo gacan saaray youtubers baa soo gacan qabtay waa la soo gacan qabtay odaga heese bedel kusoo galay halkaasuu fanki kasoo galay heeso markaas raabo qaaday halkaasuu kasoo galay kunkan shilay waa liidhanaan uu katay magaalada uu kala xidhay ila heer adigu gadhina soo raasataba waad maanta heliba laadahay ayay gaarsiin shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed horta shacabka Soomaaliyeed anu mid aan ku jeclay waa ficilka nin ragoo la xiniya taabtay iyagu way gacan qabtaan kaado ilaahu muddo ku doonan ahaado iyagu ma eegan mana qiimeeyay qabiilka uu yahay cidda uu ka soo jeedo meesha uu ka soo jeedo meesha uu ka soo farcamay inta ma qiimeeyaan laakiin waxay qiimeeyeen qofkan soo qof ma aha Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed ma aha wargarab siyo gacan qabta intaas iyagu qiimeeyaan intaas oo kaliya iyagu qiimeeyaan maantana waa kuwa heerkaa gaarsiiyey qof fanaan walba Soomaaliyeed oo jecel in heerkaa gaarsiiyaan laakiin haddii wadada wanaagsan soo maro marka wadada wanaagsan soo maro marka waxa leeyahay astaan t v nimayata meesha ku ciiwado rag waaweyn waxaa tihin cumaamadii meesha kaga dhacday xaqiiqatan yaa cumaamada leedii qaadi karmayno idinku tuuri karmayne ninka odaga runtii si khaldan baad ula dhaqanteen maantana heer horumar buu iskaasay wadinka arkayday Soomaaliyeed isaga soo daba yaacayso Shahrukh Khan buu noqday allah yaay marka waxa leeyahay هذا كذي مكفر صدا تلابد على القاعدة سان كفر هذا كذي أدمني دي سلام صاحبي ويحيى عبد الرحمن ويدري ورقة يعني حنيه تمام رقة أدمني دي سلام حد الله هي وين يوم مقالك يوم مقالك هيك